waxaa jirta murti tiraahda albaabka jiiqjiiqleeya uu ka cimri dheer yahay ka aan sanqadha lahayn. dadka la nool dhibaatooyinka caafimaad iyaga ayaa ka cimri dheer dadka badka qaba, waayo way istaneynayaan oo istaryeelayaan oo naftooda ayay ku mashquulsan yihiin, halka kuwa caafimaadka qaba ee badka qaba ay goor iyo ayaanba ay gucleynayaan oo ay shaqaysanayaan ee aynaan naftooda iyo jidhkoodaba aynaan daneynayn, ileen dhinaashiyo kama dareemayaan. muuqaalkan yar ee kooban waxaynu ku gorfeyn doonaa qaababka aad xaaladaha adag ula dhaqmayso iyo tallaabooyinka ku habboon ee goorta iyo goobtaba la falgelaya. haddii uu garaadkaagu la circiirayo afkaar isku murugsan oo misna isku kagan, waa inaad yaro joogsataa oo aad garaadkaaga ka faaruqisaa afkaartaa ku hirtamaysa. iska tir dhammaan wixii kaa murjinaya oo waxaad iskaga tirtaa sida xuubka caarada saqafka guriga iskoobaha looga mariyo. tan macnaheedu waxaa weeye u noolow si degan oo ha iska lifin, fikro badan oo isku kakana laabtaada ha ku qaadin oo diiqad iyo cidhiirtoon ha istareensiin. ka tir niyadaada wixii cusleynaya, wixii xallin u baahanna adigoo degan oo aan diiqad istareensiin xalli. sidoo kale hadday jiraan ceebo iyo dhinaashiyooyin aad si joogtaha u dareento, runtii waxaa tahay qof nasiib badan. waxaa jirta murti tiraahda albaabka jiiqjiiqleeya uu ka cimri dheer yahay ka aan sanqadha lahayn. tan macnaheedu waxaa weeye dadka la nool dhibaatooyinka caafimaad iyaga ayaa ka cimri dheer dadka badka qaba, waayo way istaneynayaan oo istaryeelayaan oo naftooda ayay ku mashquulsan yihiin, halka kuwa caafimaadka qaba ee badka qaba ay goor iyo ayaanba ay gucleynayaan oo ay shaqaysanayaan ee aynaan naftooda iyo jidhkoodaba aynaan daneynayn, ileen dhinaashiyo kama dareemayaane. badankeennu waxaynu leenahay ceebo iyo dhinaanshiyooyin, badanka ciriiri iyo diiqad ayay ina dareensiiyaan, laakiin fadlan ogow in ceebtan aynan ahayn mid wax ku dhimisa, laakiin ay tahay mid baraarahaaga ka shaqaynaysa. haddii uu jiro qof iin iyo dhinaashiyo badanka dareema, wuxuu noqonayaa qof dadka baro dheer, sababtoo ah raallida uusan naftiisa ku ahayn ayuu cadaadis isku saarayaa inuu naftiisa wax ka bedelo, sidaa ayuuna ku noqonayaa qof waxqabad leh. tusaale ahaan, dhalintu waxay leeyihiin karaan awood iyo xoog ay wax ku qabsadaan, balse waxay ka aydhoobeen dhankii khibradda iyo waayo aragnimada. dhanka kale, waayeelku waxay leeyihiin khibrad iyo waayo aragnimo, balse waxaa taag dareeyey oo tamar kabay jidhkoodii. sidaas ayayna marxaladaha nolosha ee kala duwan hadba heerka aad marayso ay u jirtaa wax aad haysato iyo wax kaa maqan oo aad tabayso. sidoo kale, si aad u noqoto addoon alle, waa inaad aamintaa inaad kala dhiman tahay oo mar waliba nusqaani kugu jirto. nusqaantana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kugu sameeyey si aad u dareento taagtaradaada oo aadan iskula weynaan, iyo si imtixaanka nolosha aad uga soo baxdo. ilaan haddii aad dhammaystiran tahay oo aadan wax nusqaan ahba dareemayn, ilaahayba xasuusan mayside. waxaad u kala dhiman tahay si tallaabo kasta oo aad nolosha qaadayso aad wax uga barato. sidoo kale, isku dayga ah inaad noloshaada dooriso oo aad qof kale barbar dhigto, waxaan dhif iyo kadeed ahayn kama faa'iidaysid. haddaad noloshaada gebi ahaanba qof kale barbar dhigto, ogow in ilaahay subxaanahu watacaala qof walba uu u abuuray nolol ku munaasab ah. sidoo kale, xasuusnow inaad leedahay hawl kugu munaasab ah oo ilaahay subxaanahu watacaala ku siiyey. dadkan adduunka ku nool midba dabci ayuu leeyahay, qof kastana waxaa jirta hawl uu ku soo baxayo qabashadeeda. nabigeennuna sallallahu calayhi wasallam wuxuu inoo sheegay in jihaadyada ugu waaweyn ay ka mid tahay jihaadka nafta lala kalo, waayo naftu mar kasta dhanka xumaanta, shahwadda iyo dembiga ayay kuu jiidaysaa. intaad shahwadda iyo xumaanta ay naftaadu ku farayso aad daba ordaysana, guul adduunyo iyo mid aakhiro toona gaadhi maysid. sidaa awgeed waa inaad naftaada la loolantaa oo aad isku daydaa inaad naftaada hogaamiso, laakiin aynan iyadu ku hogaamin. daraar kasta waxaa dhaca dhacdooyin balaadhe laga dhaxlo ama dhib laga dhaxlo. xaqiiqda nolosha ayaana ah mid dhib iyo dheef u dhaxaysa. sidoo kale, noloshu inay wax ku barto deyn mayse, adigu inaad wax ka barato hadeyn. caqliga sugan ee degan ee niyadsamida ku nool ayaa noloshan muhiim u ah. gabagabadii, ma gelgelinayo oo ma murugoonayo caqliyadeenna iyo qulubteennu hadday si dhab ah ugu xolan yihiin ilaahay subxaanahu watacaala, balse hadday rumayntaas iyo ku-xidhnaanshaha alle ay yaro gelgelanto oo ay yaro nusqaanto, ogow deganaanteennuna way yaro gelgelmaysaa oo way nusqaamaysaa.
sidaa awgeed adiga ayaa u door leh inaad doorato nolosha ba'aysa ee fikradaha taban iyo murugooyinku ay ka buuxaan, ama inaad doorato nolosha barwaaqada ah ee fikradaha togan iyo farxadda iyo deganaantuba ay ka buuxdo.